salaan kadib waxaa runtii aad sharaf iigu ah maanta inaan hal fariisto xildhibaanada golaha shacabka hindisa sharciyeedka duulista rayidka. hindiya sharciyeedkani wuxuu aasaas u yahay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayuu aasaas u yahay. hindiya sharciyeedkani waa dastuurka ay ku shaqeyn doonto hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. sida aad la socotiin duulista hawada oo laga maamuli jiray waddanka Kenya waxaa hadda laga maamulaa waddanka gudihiisa. sida aad la socotiin waxaa soo batay diyaaradaha xildhibaano international nidaamka dhowra xildhibaanada gadaalka taagan fariista inay ka shaqeeyaan. waxaa inoo kordhaya cilaaqaadka duulista ee aan la leenahay wadamada dariska ah iyo kuwa naga fog intaba. dhammaantood heshiisyadaas iyo shuruucdaas aan la gelayno wadamada suurtagal ma aha haddii aanan haysanin sharciga duulista rayidka. hay-adda ICAO International Civil Aviation Authority-ga adduunka oo UN agent ah ayaa regulate garaysa adduunka oo dhan, waxaana la aasaasay 1944. Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamadaasi 1964. heshiiskaasi lagu aasaasay waxaa ka mid ahaa in waddan kasta uu yeesho sharciga duulista hawada. waddanka aan ku noolnahay waddankeena Soomaaliya waxaan u soo diyaarinay sharciga duulista hawada oo ay ka soo shaqeeyeen khubaro Soomaali ah. buugga aad haysatiin ee sharciga dushiisa waxaa ku qoran intii ka soo shaqeysay. waxaan ka cudur daaranayaa looyarkii qareenkii koowaad ee ka soo shaqeeyay Maxamed Dooli oo qareen Soomaaliyeed oo waddanka Canada jooga in runtii aan magaciisa meeshaasi ka soo ilowno. waana ka cudur daaranayaa oo lagu soo dari doonaa insha Allah tacaala. waa ku qoran tahay wasiir maxamed jaamac Doodi khabiir duulista rayidka caalamka. ninkaasi waa ninkii turjumay eray bixintana keenay, laakiin looyarkii ka soo shaqeeyay Maxamed Dooli ayaa la yiraahdaa. Dooli law firm hay-ad shirkad la yiraahdo ayuu ku leeyahay waddanka Canada. marka sharcigani waa sharciga hagi doona duulista hawada Soomaaliyeed oo aad u baaxad weyn ka soo bilaabato ilaa iyo badweynta India, Mumbai ilaa iyo Ethiopia hawadeeda inaga ayaa maamulno. sharcigana waa sharcigii aan ku maamuli lahayn. maanta laa saamax Allah haddii incidents waxay dhacaan shuruucdii la raaci lahaa oo dhan waxay ku salaysan yihiin sharcigan. waxaa jiray 19 annex oo waajib nagu ah inaan fulino. 19kaasi waa sharci hoosaad aan gudbin doono, isagana aan samayn doono oo runtii aanan u baahnaan doonin baarlamaanka, laakiin uu sharcigani u yahay hooyadii maamuli doontay hadduu Ilaahay ka